السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan mar labaad aan halkan ku kulanno muddo xoogaa markaan idinka maqnaa waa ka cudur daaranayaa ma qorsheynaynin inaan masaafo dheer intaas la eg aan channelka iyo balanqaadka dhalinyarada u sameeyay inaan kala hadli doono talooyin iyo tusaalayaal iyo xirfadaha is leeyahay dhalinyarada way ka saaciidi doonaan suuqa shaqada aan kala hadli doono. marka koowaad waxaan rabaa inaan ku bilaabo horta caqabadaha iyo dhibaatada xageebay ka haystaa dhalinyarada. haddii aan dib ugu laabano nidaamkeena waxbarasho ee dalkeena ayaa muhiim ah marka inaan dib u fiirino. nidaamkeena waxbarasho dalkeena wuxuu ku saleysan yahay runtii wuxuu u baahan yahay isbedel aad u weyn in lagu sameeyo. nidaamka hadda aan ku socono waxbarashadeena ama heer waxbarasho dugsi hoose ilaa dugsi dhexe ilaa dugsi sare ama jaamacadaba ay ku socdaan waxaan dhihi karaa wax badan ayaa naga khaldan. wax badan waa la qabtay balse waxay ahayd garaafka maanta la marayo in hore looga socdo balse waxaan u malaysaa markii koowaad in xoogaa masaafo fiican la soo jaray burburkii kadib waliba 2000 ilaa 2005 6 7 in la fiicnaa kadibna hoos loo degdegtay. waxbarashada lagu bilaabay saan ogeyn hadda nidaamkeena jaamacadaha markay bilaabmayeen in ardaydu qaar ay ahaayeen qaar jaamacadihii hore dhexda iyagu u marayay waxbarashada ka haray ee dagaalka sokeeye ku dhacay iyo qaar waxbarashada markoodii hore intii meelahaas wax ka soo buusadeen bilaabay waxbarashada labadaas group ay u badnaayeen. maxaa yeelay ma jirin burburka kadib dugsiyo sare waxbarasho oo markii hore ka sameysmay. dugsiyada intooda badan waxa laga soo bilaabay bilow kadibna jaamacadaha ugu horeeyay dalka waxa la dhigi karaa 2000 iyo wixii 98 meelahaas waqtiyadaas ay bilowdeen kadibna waxay soo hana qaadeen 2000 wixii ka dambeeyay ay soo kaceen qaarkood waqtigaas 2-3 kuliyadood 4 kuliyadood ugu badnaan ay wadeen way fiicnaayeen masaafo aad u fiican ay runtii soo jareen balse waxa dhacday dhibaato weyn ayaa dhacday markii ay 2000 iyo waxaan dhihi karaaba 6 7 8 wixii ka dambeeyay dhibaato aad u weyn ayaa dhacday oo ahayd in masaafadii la jarayay dib looga laabtay. taas waxa keenay in quality waxbarashada dadka qaar badan ay rabeen ma soo bixin. maxaa yeelay suuqii shaqada markii dad badan ay soo galeen intii ugu horeysay waa la observe gareeyay waxaana ku wacnay because dad wax yaqaan ma jirin. dadku waxay raadinayeen oo kali ah yaa wax qori yaqaan yaa wax akhrin yaqaan yaa wax fahmi yaqaan yaa luqad yaqaan yaa xogaa sameyn kara ayaa aad loo raadinayay. taas markii la helay kadibna suuqii shaqada tartankiisu aad ayuu batay kadibna waxa adkaatay dad kale oo badan inuu suuqa shaqada absorb gareeyo balse jaamacadihii dib uma aysan laaban dibna looma fakirin iyo macaahidii waqtiga shaqeynaysay lisma dhihin warniyo maxaa naga khaldan balse tartan aad u fulxun ayaa bilowday oo ah anigana waa ikan jaamacadihii inay maalin kasta jaamacad cusub samaysmato koorso cusub samaysmato jaamacad laba qol degan ay 10 koorso 20 koorso 30 koorso ay sameynayso macahad hal qol degan oo 40 koorso 50 koorso waxaysiinayo ayaa dhacday nooc ah ardadii haloo kala tartamo ardadii lagu yaaco ardadii laftigooda dib u maysan fakirin iyo waalidiintii maysan dhihin war nidaamkan waxbarasho iyo nidaamka dawladda laftigiisa dib looma fiirin lama dhihin war nidaamkan sidan loo socdo waxbarashadan u socoto wax badan ayaa ka khaldan. saas darteed we have to look back waa inaan gadaal fiirino aan dib iskugu laabano one step backward waa inaan u qaadno aan fiirino maxaa naga khaldan. soo nidaamyada waqtiyadaas maamul goboleedyada waddanka markaas ka jirayna sameysmay waqtiyadii hore iyaguna dib u maysan fiirin waxay keentay arrimahaas in la isku daray meelihiisa nidaamka ka jirin iyagu foodo weyn baa sii socotay kadib waxa keentay in janta rogan waxay Soomaalidu dhahaan ay waxbarashadii noqoto ana ka arday badan iyo anaga ka koorso badan iyo in lagu tartamo ay aniga duurkiiba waxay la dhigtaa iyo aniga habeenkiiba teeda la dhigtaa iyo arday soo yaaca nidaam noocaas oo kale taa arday badatay waqtiga runtii qaar waa faa'iideen oo dadaalkoodii iyo waxay ku kabeen qaar shaqeynayay iyo waxbay isku kabsadeen shaqo way heleen laakiin qaarkii badnaa oo iska yaacay ku soo galay yaacayna kaga baxay dhibaato weyn ayaa qabsatay suuqa shaqada markay soo galeen
maxaa yeelay waxbarashadii qaar maanta heerka ay marayso waxay maraysaa in just macalinka uu dhowr slide ardayga uu usoo diyaariyo slide 30 slide 40 slide 50 slide waxay noqotaba slideyadaas PowerPoint presentation uu saaro korka ka akhriyo kadibna ardaygu dhawxiisadeedu waa dhamaatay bisha markay dhamaatana maamulka jaamacadda ama macadku kula xisaabtamo intayda isiiya taas marka dhibaato weyn ay abuurtay meelaha hadda ugu roon xataa la dhigi karo practical ay sameeyaan runtii wax badan baa lafteeda khaldan maxaa yeelay ardaygu kuma filnaanayso oo kali ah de maalin baan practical ku geeyay ama maalin baa isbitaal soo booqatay ama laba bari baa isbitaal joogtay it's just an exposure visit weeyaan ma ahan practical rasmi ah ardaygii uu gacanta la galay wixii ma noqonayso ama ardaygii caafimaadka kale ardayga maalin abartisada loo diro caafimaad inta uu ka weyn yahay runtii maaha inaan dhaliiliyo nidaamkan waxbarasho balse waxaan rabnaa inaan critical review aan ku sameeyno aan dib iskugu fiirin aan isqiimayno war waxbarashada aan soo saarayno industry-ga suuqa ma absorb gareyn karaan ma u baahan yihiin mise just waa iska soo saarnaa waxbaan soo saarnaa taas ayaa u baahan marka inaan kulligeen aan discussion adag oo real ah reality ku dhisan inaan ka galno jaamacadaha iyo dawladaha iyo wasaaradaha intaba iyaguna ay miiska wada hadalka iskugu yimaadaan ay wada fariistaan ay dib u fakaraan waxaan tirada badan oo nooc business oo kale oo ekaatayna laga fiirsado anigu muddo ayaan waxbarashada ku soo jiray runtii wasoo ahaa macallin runtii waxaan dhigi karaa waqtigii macallinimadeyda waqtiyadii ugu horeysay macallinka laftigiisa waxa la rabaa inay wax u ziyaadaan maadaama macallinka markuu maaddo dhigayo course preparation buu sameynayaa dadaalka uu sameynayo waxbuu fahmayaa research buu sameynayaa research kama hadlayo kii cilmi baarista runta ahayd kaas macallimiin sameysay runtii aad bay u yartahay balse waxaan ka hadlayaa inuu maadadii bal uu raadiyo uu fahmo ayuu isku dayaa soo ardayda u fahansiiyo kadib waxa dhacaysa balse macalinka marka uu ardayda isku dayo inuu wax fahansiiyo macalinka ugu roon marka waa macalinka maadada ku cusub semesterkaas dhiga ayaa noqonaya macallin fiican oo semesterka wax faa'iideysta balse macallimiinta qaar marka uu semester dhigay maado oo semester labaad isla maadadii dhigay wixii wax uu korku ka qabanaya aan dahar qayb korku ka qabanaya kadib waxa dhacaysa macallinka preparation adag maba sameeyay kaliya macallinku waxa uu muuqanaysa maadadu ku diyaarsan tahay jaamacad Hiblaayo 3 xiisa ka soo gal jaamacad Hiblaayo 4 xiisa ka gal taa kale 2 xiisa ka gal macallinkii nooc saas uu wareegaya maanta oo dhan wuxuu ku dhex meeraysanayaa xiisadii kala duwanaa ee jaamacadaha kala duwanaa ayuu dhex soconaya taas waxay noqotay in macalinkiina nidaam accountability ah jaamacadii dawlad ma leh dawlad ma support garayso waxay ku socotaa waxoogaa ardayda laga helo soo tan arday bay haysataa dhowr arday bay haysataa lacag bay la baxeen taas ka arday bay haysataa lacag bay la baxeen saas uu isku dhex wareegaya marka macallin kun uu tagaya tan uu tagaya xoogaa isku dhiganaya kan wax buu ka dhigaya caqabad weyn bay noqotay 2000 iyo aniga dhawaan 2000 runtii 17 baan laftigay isirniyo bal nidaamkan sidan ah macallinimadu macallimiintu waa dhiban yihiin ardaydu waa dhiban yihiin jaamacadii habi maaha maamulkii habi maaha macallimiinta habi maaha ardaydu habi maaha kulli habi lama aha maxaa yeelay lama wada qanacsana qof kasta dhibaato haysata macallinka dhibaato haysata oo platformkii uu wax ku gudbin lahaa ama lagu la tartansiin lahaa macallinka aan waxba garanayn jaamacadii maba aysan sameyn maysan abuurin jaamacadii dhibaato haysato oo macallimiin quality leh hadii ay la imaan lahayd xitaa lacag badan uma ay haysato ama investment badan marka hore maba aysan ka fakirinba inay si sameeyaan khalad way ku yeelan karaan iyo macaahidaba intaba sidoo kale to ardayda dhibaato haysato oo de nidaamkan meska ah ayay wax ku dhex baranayaan intaas oo caqabadood runtii wax badan iskama weydiin war xagee baan u soconaa inna isma dhihin qaar waxa maraynaa heer maanta medicine jaamacadaha dalka qaar khamiisii jimcaha la dhex dhigto marka caqabadahaas oo dhan wax uga sheekeynaya maaha in aan niyad jabiyo ardayda Soomaaliyeed balse waxa ay u baahan tahay in ardayga uu yaqaan waxa uu xaq u leeyahay jaamacaduna ay taqaan waxa ay macallinka ka filanayso macallinkana uu yaqaano waxa uu ka rabo jaamacad marka uu ka shaqeynayo inuu ka helo macallinku lacag kaliya jaamacadda kama u rabo balse macallinku jaamacadda wuxuu ka rabaa platformkii inuu u diyaariso jaamacadda meesha ardayda wax ku siin lahaa practicaladii macallinka marka aan waxba kala garanayn halkaas uu baharaya maxaa yeelay uma diyaarsan inuu nidaamkan dheer oo jaamacaddu ay quality-gi ku hagaajinayso uu ku shaqeeyo macallinka u diyaarsanayn uu ka baxaya suuqa sidoo kale to jaamacadda aan nidaamkaas lahayn iyadana way adkaanaysaa in arday badan ay sii haysato
ardada laftigooda waxay noqonayaan benchmark ay wax ku cabiraan ay ku fiirinayaan quality institutionka dhiganaysid seeguu yahay marka dib in loo xisaabtamo ayaa aad u wanaagsan 2017 aniga waxaan dhex galay macallinimadii xoogaa dib baan wax yar uga laabtay waxaan fiiriyay nidaamka dhinacan hay'adaha dhex galay hay'adaha laftigooda macallimada suuq shaqo way laftigeeda hay'adaha waa suuq shaqo waana labada furas oo maanta dalkeena ugu badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka shaqeeyaan marka laga yimaado dhalinyarada qaarkood businesska haysta ama business abuurtay laga yimaado runtii hay'adaha waxa ugu dhex tagay laftigooda waxyaalo kale cajiib maxaa yeelay dad badan waxa arkaysaa hay'adihii muddo ka shaqeynayay oo aanan booski wali aan dhaafin taas laba caqabad bay ku noqotaa caqabad ah in qoladii ka sarreysay aysan dalacin oo meeshaada joogta adna aad wali ka hoosaysid inkastoo qaarkood ay markay ay wax fahmaan ay ka risan garayaan oo meel kale better opportunity ay raadsadaan runtii marka waxa u baahan caqabadaha ugu badan oo dhalinyarta shaqeysa suuqa shaqada ku jirta ama hay'adaha ka shaqeeyaan iyagana haysta waa laba shay jaamacadihii ay ka yimaadeen suuqa shaqada waxa yaala laguma soo tababarin qofkii ardayga ahaa saas darteed waxa ay laga yaabaa qof hay'adda mar fursad ku helay assistant ahaan inuu u shaqeeyo in uu isla markiiba dalaco 1 2 3 4 5 program manager markii isugu jooga la arko maxaa yeelay because khibrad buu ku shaqeynaya kuma shaqeynaya wax badan jaamacaddii wixii uu ka soo dhigtay taas ayaa saacidaysa qofkan challenge-radii markiiba inuu hore u fuulo ama furas kala duwan hadduu smart yahay meel kala duwan oo tan officer ka ah xogaa markuu shaqeeyo ka tago boss kale oo xareeyo coordinator hore u socdo project manager program manager director hore u sii socdo taas dhalinyaro badan ayay saaciday qaarne die stack meeshii ku istaageen maxaa yeelay furo badan ma sii rogan karo qofkii marka dhowr caqabadood ayaa jirta marka suuqa shaqada ka dhex jirta dhinaca hay'adaha oo ah dhalinyartii waxa hay'adu waxa ku shaqeeya nidaam u diyaarsan template ba u diyaarsan waxa u diyaarsan processkii ba u diyaarsan projectigi dhan marka qarkood uu qoran yahayba qofka dhalinyarada waxa laga yaabaa kaliya in la dhaho niyo 1 2 3 4 5 adiga shaqagal template kana buuxi report kan waqtigaas ku dir report kana template kaas lagu guraa that's all intaas marka runtii shaqo badan ma ahan haddii si loo fiiriyo project waxa laga yaabaa wuxuu leeyahay log frame waxa la dhaho activity baa ku qoran activity kasta lacagtii lagu qaban lahaa waxa ku qoran durationkii lagu qaban lahaa iyo meeshii lagu qaban lahaa soo qofka waxa laga yaabaa inuu just ilaashanayo projectigan activity-giisa lacagtiisa inuu saa ku socodsiiyo oo just line u jeexan marka waxay ku saacidaysaa waxay dhibaato ku keenaysaa qofka dhalinyarada inuu horumar badan u sameeyo ay qaar badan dhalinyartii stack ay ku noqonaysa ay ku istaagayaan oo hore uma sii socon karaan balse dhalinyarada markaas kale tal ahaan waxaan siinayaa inuu qofka uu ka fakaro inuu waxna ka shaqeynaysid isna hay'ado shaqadooda maaha shaqo weliga aad haysanaysid maaha waa just waa shaqo humanitarian ah oo bulsho la caawinayo oo muddo soconaysa projectigan 1 year 2 year 3 year 4 year waxbay soconaya khasabna maalin una ka tagaysid soo muhiim maalinta aad ka tagaysid inaad ku fakartid war niyaho maxaad kaga tagtay maxaad la tagtay oo suuqa shaqada aad la tagaysaa ma madax banaanaan kartaa gooni ma u shaqeysan kartaa su'aalo badan oo kale qofka noocaas inuu is weydiiyo